سائلكن wuxuu leeyahay sheekh waxa tala naga siisa oo aad la talisaa dhalinyarada ku saamowday dhaqanka reer galbeedka ee timaha sida khaldan u xiirta ama dhinacyada xiira talasi ay waxweeyaan kuwaana qaadanayaan tala waxay ku kooban tahay inaynu ilaahay ka cabsano subxaanahu wa tacaala gaaladu maanta dunida joogta ee reer galbeedku hogaamiyo waxay ku fiican yihiinna waa jiraan oo ay dunida dee ku hogaamiyaan ilaa cidi hadiyad uma siinin hoggaanka dunida ee waa waxay shaqaysteen waxay ku liitaanna way jiraan innaga dhibtu waxay naga haysataa wixii ay ku fiicnaayeen kaga dayan maynee wixii ay ku liiteen baynu kaga dayanaynaa waxay ku fiicnaayeen ee dunida ku maamulaan waa aqoon iyo cilmi baadhis iyo sabir iyo xilmi iyo wixii la mid ah taas baa sababtay inay dunida hoggaamiyaan bacd allahi subxaanahu wa tacaala taas baana diintu inoo sheegtay meeshaynu ka hellaba inaynu qaadanno oo tajaaribtii aadanaha ah waxay ku liitaan aan waxba sheegaynin oo ah professor dhan oo aan nijaasta iska maydhi karin markaad aragto ama waxaan aadamaha u suubanin samaynaya waad ka naxaysaa xaggan kale markuu dhigayana aad arkayso khabiir laga dambeeyo inuu yihi haddaba walaalaha muslimiinta dhammaantood waxaan leeyahay wargaalka waxaad kaga dayataa wuxuu ku dheer yahay ee diine wuxuu ku dheer yahay ee cilmiya kaga dayo adiguna waxay ahayd inaad aadanaha u soo bandhigtid waxaad dheertay dhaqan iyo diin iyo akhlaaqaad rabbigaa kala kulantay haddaba gedinina arrinka waa wixii cilmi iyo ku dayasho u baahnaana kaga dayan mayno wixii aan ku dayashada u baahnayna waynu kaga dabagedis saas marka waxaan leeyahay walaal kastoo muslima nimankaa haddaad rabto inaad wax kaga dayato cilmiga iyo aqoonta kaga dayo laakiin tibadhan laga xiiray iyaguna kumay horu marin mara la gaagaabsada ama la daldalooliyana kuma horu marin kuwooda horu mariyeyna maaha kuwa waxaa ka shaqeeya xataa kuwooda horu mariya waxaan ka dambeeya qolada idinku daawataan inta badan waxay u badan yihiin kuwa la yidhi dadka madadaaliyo dhaqanka ka bedela kan heesa iyo kan boodbooda iyo kan kubadda ciyaariyo waa kooxda entertainmentka ka shaqeeya bini aadamka inay madadaaliyaan oo mashquuliyaan yaan lagu mashquulinine meesha wax jiraan qabo wallahu aclam fiihi wa fii cilmihi saa'ilkani wuxuu leeyahay malah waa qurbajooninkaneye sheekh waxaan imi meel airbood ah ama meelahan diyaaradu ka duulaana marka ay baa wax baadhayay oo ilaalada ka mid ahaa aygii wuu iqaniinay qaninyadiisii marka waxaa lagu ganaxay lacag oo la iga siiyey akoonkiisii lacagtaa ma qaadan karaa oo ma ii bannaanta sheekh cabdinaasir xaaji axmed bad weydiinaysaa kula degan جزاه الله خير الجزاء سائل كان لا دحولي الشيخ وحان هاي أرضي برتي علوم تشريعة دون يا إنه برتو علوم تا السياسة سدا درادد ما يقولت الإنسان أن برتو علوم تا محاسة لقى سينسا علوم تا أرتسك الله هذا لما أنت مركز الأسكو ضدره وعقل بني آدم وحيك سوفلي oo ku salaysan waliba qofku sidoo nolosha iyo adduunka iyo jiritaanka u arkayay markooba ma ku sheegay waxa weeyaan culumta maadiga inta badan la iskuma khilaafo culumta maadiga inta badan ma sheegto qofkii soo saaray wuxuu rumaysnaa مثلا قاعده xisaabta ma ka tarjumayso ninkii soo saaray wuxuu rumaysnaa ma sheegaysa الجبر دقتا الجبر والمقابلة الجبر وان المسلم صوصاري لكن المسلم صوصاري كمان مغنيس اللوغريثم بعض دقتا
اللوغريثم ومقعي محمد الخوارزمي اللوغريثم واسقل دنو بالو أخريه والخوارزمي ويان كما ترجميسو قرن ميسيد marka aqoonta maadiga ahi ma kala laha sibqo yahuudiya ama buudista ama kristana ama muslima ma kale waayo waxa xaqaa'iq laabka la geeyo ama calculation la sameeyo haday sax noqotana saxa haday qalatayna qalatay ama aqoonta aaraada bini'aadamka ku salaysanayaan tajribada gelin waxay kala leedahay madaaris fikriya school of thoughts وكوا مدك تحجة كوا بدح تحجة كوا هلك كنا كوا شيوعية كوا كابيتاليست كوا عين كنا محل ولا كوا كوي في سجس ميولة كوا كابيتاليست كا كوا شيوعية كوا يهودي ما كلا له لكن مركات ماذا آرت كوا حلوا يقانو أيام مسألة كستولا سوق هذا أنت ثيوريو كلا نوع الوجوشية أو school of thoughts اللي بروفيسور هبل وحو قامنا يا راي عين كا سكرنا وحو قامنا راي عين nin walba adiladiisu ka sanay xujadiisu ka sanay waa araa la dhigayo taa macnaheedu waxa weeyaan aaraada aadanaha caadiga aan ahayn talaabka gashaa inteeda ugu badan le qofku wuxuu rumaysay iyo nolosha wuxuu ka rumaysay sawir ka dhex muuqda weeyaan saadaradeed ba aaraada kapitaaliska rumaysani liberalism مثلا ninka rumaysani ee siyaasadiisa ka dhex muuqata sidoo dhigayo liberalismka communismka ka rumaysanay siyaasadiisa ka dhex muuqata maxay siyaasadda sidoo dhigayo basis ku noqonayo walidaalك waxa dhiganaysa waxa weeyaan waa tajaaribtii bini'aadamka oo lagu kala gadisay maadaama ay tahay dhaqaale siyaasad taariikh waxa soo dhan isku soo dar xaq iyo baatil ba way leedahay waxaan ku talinayaa qofka muslimka ee raba inuu dhigto وتجاربتي آذانها هادكتو لكن هادكتو إساقو هايستا وحا وحق يبادلك كوخالا صوعه وصوشي دي ديني دين تادو أي شيء يسي وين أتقرن يسا محا صحا محا قلدن وصوشي سماركا يكون ركبانتو وحا كالوردن واد بران كرتا واد كالا قران كرتا مركا محا كيسو سوابكا ودوية سيداي سوابكا وكالا دودة محا قلدن محا لتوسين كرا محا لغا فايدة سكرا محا لغا فايدة سكرين المسلمين تي هوري dhaqankii iyo diimihii dadka kale ma ay qaadan laakiin haddana tajaaribtoodii wixii faa'iido ku jirtay way qaateen mid dagaal ha noqoto مثلا dagaaladii nabigu galay khandaqa kan iyo waxana waa tactic beershiyana muslimiintii beershiya ka timay soo kordhisay waa la qaatay diiwaan galintan askartiya maamuladan iyo waxa ka nooc ka mid dawladda kale laga soo qaatay waa la qaatay yani wax badan oo la qaatay baa jira wax laga tagayna waa jirta marka waxa doonto baro aqoon laakiin bara adigoo dhisan oo bays leh oo aan lumaynin mushkiladayna qabsatay ugu badan ba waxay tahay inaan koo maran ba inta halkan laga diro malcaamadii diini ugu dambeysay ayaa raashiya loo diray dabeetana xaq iyo baadilkii intuu kala garan way isagoo communist soo noqdo inaan koo maran oo malcaamadii diini ugu dambeysay Mareykan loo diray ama Ingiriis loo diray dabeetana isagoo liberal buu soo noqday ama afkaarta rumaysan base kan ku dhisanay hadda base kaagu dhisan yahay waxbarashadu dhib ma aha waxbaro wallahu a'lam ilkan wuxuu leeyahay Soomaaliya sheekh ma la dhihi karaa waxay ku sii socotaa wadadii Andalus ay ku luntay ka jirta dhibta ka jirtana dadkeeda geystay dadku waxay jecel yihiin inay cid kale eeda saaraan dadku waxay jecel yihiin inay yiraahdaan Ethiopia ina jabisay waxay jecel yihiin inay yiraahdaan galada inoo tashatay oo Mareykanka iyo Ingiriiska yeemayna waxayna la rabaan baad moodaysaa iyaga ayna qaybinaya waxay jecel yihiin inay dawladaha jaarka China maxaa la yiraahdaa Kenya iyo kuwan bayna baabiyay waxa ka jiraan runaa soo sheego inaga isjabinay markaynu jabnayna waa laynaga faa'iideystay waana sida caadiga bini'aadamku u fakaro Ethiopia maxad dantaada u raacatay soo doqonnimo ma aha inaad la timaado meesha Ethiopia maxad dantaada u raacatay waa doqonnimo Ethiopia masaalixdeeda ilaashanaysa wixii dan ugu jirto laakiin aanay ahayd inaan maslaxadayda ilaaliyo joojiyo Ethiopia waxaan aniga maslaxadii ugu jirin أنا هيدنا دنتي إذا إلى تشوتشيا كينيا وحا أي وده دان مثل حدي يجورين أنا هيدنا دنتي إذا إلى أمريكا إنجليز بان تشوتشيو وحا ودنا دان يجورين
nebi maxamed iyo saxaabadii markay jabeen lama odhan khaalid oo xariifa idin helayo intuu dhabarka idinkaga dhuftay dabeetana wuxuu sidaa idinla dhigay lama odhanin ee markay jabeen markay iyagu taktiigii nebiga khilaafeen ayuu khaalidna godoloolada arkay dabeetana uu ka faa'iidaystay khaalid oo gaal ah ayaa wuxuu arkay godoloolada dabeetana meeshii dalooshu ka soo dhacay dee muslimiintu tarab u dhigay dabeetana saxaabadii waaweyneed la yaqaanay nebiga adeerkii waa markii la dilay xamse iyo raggii la mida dhulka loogu tuuray markay muslimiintu yidhaahdeen anna haadana ilaahay baa u jawaabo wuxuu ku yidhi qul huwa min cindi anfusikum qul huwa min cindi anfusikum malik ibnu nebi nin la odhan jiro caalim muslim oo dhintay ayaa wuxuu odhan jiray isticmaarku maaha mashkiladuye waa qaabiliyatu listicmaar buu leeyahy ninkii gumaysiga aqbali karaa la gumaystaa buu leeyahy gumaysigu weligii buu iska jiray cid rabtay inay cid gumaysataa waa iska joogtaye dee nin la gumaysan karuunbaa la gumaystaa soomaaliduna maxay yidhaahdaan miskiin baa miska la fulo leh markaad miskiinka noqoto ayaa dee dadku ku kooraysanaya markaa soomaaliya meel fog dhib bay ku jirtaa dhab weeyaan taas laakiin dhibta ma etoobiya ku haysa mise kenya ku haysa mise maraykan baa ku haya mise cinkan baa ku haya waa dhibta innagaa isku hayna innagaa isjebinnay innagaana weli isdilayna innagaana rabna weli inaynu kala guurro innagaan tuulana tuulada ku xigta heshiis la ahayn tuulana tuulada ku xigta heshiis lama aha inay ka guurtaa bay doonaysaa marka haddaynu innagu caqli keenno lagu wada noolaan karana waynu dib u noolaan karnaa waddankeenniina waynu joognaa waanaynu noolaan karnaa haddaynu caqli keeni weynana dee waa layna gumaysanayaa adeer ninkaan tashanaynin dee waa loo taliyaa carruurta yaryar ma tashan karto markaa waa loo taliyaa reer galbeedku waxay yidhahdeen dunida badh baa wisaaya u baahan isma maamuli karaana in la maamulo u baahan marka ergeyga jamciyadda quruma ka dhaxaysaa laynoo soo dirayaa siduu inoola ego bal inaynu ismaamuli karra iyo waxaynu gaadhnay inay waxa saxayiin iyo dhaqaalahaynu u baahnay inaynu kolba barino idhaahno askartiina wax may helin qoladaasina wax may helin oo la yidhaahdo fankaa laydinku darayaa projectka sanadka dambe eu-da idinku daraysa ama usaid baa laydinku daraya war dawarsi cidina kuma noolaato dadna laguma noqdo dawarsi cidina kuma noolaato dadna laguma noqdo dawarsi masaakiintaa ku dhergi lahayd haddii cidi ku dhergayso miskiinkan yaa la waxsiiyey dun hayaa imisunbuu lahaa yaa la waxsiiyey marka waxaan uga jeedaa soomaaliya waa burbursantay dhibina way haysataa laakiin aniga aragtidayda dhibteedu ma aha gaal baa soo duulaye dhibteedu waxa weeyaan aniga iyo adiga iyo in adeerka iyo kaka sii dambeeyaan isdoonaynin haddaynu innagu caqligu lagu wada noolaado keenno gaalada waxay idhaahdaan saddex dariiq baa jira oo bini aadamku uu u kala baxo bini aadamku inuu iscafiyo iska heshiiyo cid la yidhaahdo nabad waa lagu kala baxaa bini aadamku inuu musaalaxa galo win solution waxay gaaladu yidhaahdaan intuu isu yimaado inuu heshiiyo yidhaha war bal annaan guulaysta adnaad guulaysatide adna wax ka taga annaan wax ka tago meel dhexaan isugu nimaadno hore u soconnana wuu kari karaa bini aadamku inuu garramona waa lagu kala baxaa waar heshiin weynaye ha laynoo gar qaado ilaahay kitaabkiisaa cid inoogu saar inoogu gar qaada marjaca waxa la isku garramayaan isku waafaqno dabeetana aan garranno kala baxno haddaynu soomaalinay saddexda midna ma ogolin inaynu iscafino iska wada noolaanno ma rabno inaynu win solution compromise samayno ma rabno inaynu garranno ma rabno laakiin maxaynu rabnaa inaynu ismuquuninno inaynu weli rabnaa caqligu inuu shaqeeyo ma rabno weli waxaan rabnaa in muruqu shaqeeyo maalinba ninkeenna waxoogaa dabaabado yaro rooni inta kale inuu yidhaahdo ma idinkaa wax sheegi karaa maalinba ka laga yaro dabaabado roonaada inuu yidhaahdo maaday gumaysan karaa anna waan jabhaday marka waa un halkeennii baynu ka wadaynaa un sidii baynu u wadnaa 25 sano ama 60 sano ama 30 sano la sheegay saa baynu ku wadnay marka waxaan ku soo koobayaa gaallayna ma haysto cid kalena ma haysatay inaga haysanee haddaynu inagu caqli keennana waynu jiri karnaa haddii kalena dee waa laynoo talinayaa ee aqbalaya in laynoo taliya waxba etoobiya ku xagxaganina ama maraykan xagxaganina in laydin taliya aqbala wallahu aclam
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا.